markastoo maqalkayga iyo muuqaalkaygu idinka soo gaadhayo waa mar kale iyo barnaamijkeygii su'aalaha dabcan nooga barateen toddobaad walba inaanu hawada idinka soo marino telefishinka Sahal Cable wuxuu si toos ah idinkaga imanayaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari haddaba galabta waxaan dadweynaha magaalada Boosaaso ku nool aan weydiin doonaa su'aal sidii aad dabcan nooga barateen horeba inaanu toddobaad walba aan laba jeer hawada aan idinka soo marino walaal marka hore kuna soo dhaw Sahal Cable TV iyo sidoo kale barnaamijka su'aalaha Boosanaag adoo igu bilaabay magacaaga أنا مقعد أنا لسه عم كوي مستر هريري واي. مستر هريري. ها. حاجة نذكر مش جو كاش شقينا بكيلوين كاس وضناي وعانا شيل من كسيم مقعد هاي. حكوا مقعد هاي. مستر عانا شيل هذا. عانا شيل. ها. عانا شيل مقع عانا شيل كم حياة بالموشة. مقع عانا شيل الموت وهذا سربي أو شات لو حلوي وأنا في ذكرين واي. تامي وحلو جدا اللي يموتوا قبل إحنا داسكو هاي مارتي يلا وقت لي. سواء ماذا وأس شيء يشيل لو تلقى ما قبل شيل با هبلو وتعر يعني ما كذا ترى قبل شيل بانها كل إنه شيل مو يندوك كلام ما لهم ولا لكن إيش ماشي دي اسمحي هذه إيش هذه وكويدي واحد كورنا ساعة برجعيل كدتكو قيبة وحبي كامسين أنا تقول جعيل كم حد كامسين أنا تجعيل ما أمسين توتال واحد جعيل اللي يراهو حتى فيري أنا سوي بلانمي نرجع سومي واحد كسرنا باهن مش أنت كنا يا حد أمسن تهوي أنا واحد أمسن كلا نصح وباهن تاي أنا واحد وباهناي هذا أنكو بانك سوقات واحد وباهناي قاربان وباهناي وأن سوقته ولا تابن كره بس واحد جرين وكلمة بس هوا رقبته جعل لي هالك أي تالو لا تابن كارو كاسن جرين واي سودو ولا مركورة كل سودو سال كيبل تي في يستقبل برنامج كسؤالها هبوي سناك هذا يقول بلعبة مقعد magacay wax liyaa Abdul Jaamac aan ku magacay abwaan raga jaamac abwaan wad badmaad santa soo dhaw baan ku leeyahay bal su'aal hadii aan ku weydiyo bal jacaylka sexuality jacaylka waa isku fiicanay jacaylka dhalinyaradu wax badan bay ka fahansan yihiin marka wax khalad iyo si aan loo baahnay marka fahansan marka jacaylku waa dooqiisuna waa dareenkiisuna waa guurkiisuna waa calaf marka intaas isku xiriirsan yihiin marka qofku jacayl galo dareen buu qaanaya dareenka markuu qaato labada qof yacni waqti wada qaataan bay heer ku gaarayaan marka adigu jacaylka wada aaminsantahay aan waa aaminsanahay laakiin hadii sidii la rabo laga dhigo dadka jacaylka aan aaminsaneen qoto ka aaminsanee maxaan ku dhahdaa iyaga maxaad leedahay hadda ka hor baa waxa dhacday qofku jecel aan jeclayn dareemino doorsoomo laga waa yacni hadda ka hor baa jacayl aniga waa sameeyay xiriir baa sameeyay marka qofku jecel aan jeclayn dareemino doorsoomo laga waa yacni jacayl doorsoomo laga waa baanugu magacday gabayga okay imkaan waxa ma ku oranaya abwaanka jacaylka maadaama abwaan tahay madaxa jacaylkana aad tahay sida imika ay sheegtay bal matalan oo kale hadda qofku marka qofka aad jeceshahay oo kale isaga maxaad ku garan kartaa isaguna uu ku leeyahay waa ku jecelahay inuu ku jecelahay kan sababta ku ogaan kartid maxay tahay sababta ku ogaan karaa sababta calaamado badan baa jira qof inay jeclisma ay karaan mid Soomaalidu tiraada waxyaabo badan baa jira oo keenaya ka dareemaysid marka sidaas aad keeni kartaa marka suugaan baa wacbir la xaro qumana qaayaha marka arkaa la qadariyaa qodna ku jecel iyo niman ku quurin baa waxaad ku qaanataay qaalin iyo qoorba wax laga baxso way tahay qaaliday ku macaan tahay qiraa'ada rasuulka iyo qumankaas ba dadka lagu qanciyay hadii ay qalaadase qayrkeed way ka qaloonaysaa aniga waa quud jacayl baan gabdhaha qayrka u qaanadiiday qiimaad u leedahay inaad qaan ku hanatay halka xishoodka u wadaa qiimaad u leedahay inaad qaan ku hanatay adduun qof qiimo ku lanqaayayso waqaan turaya inaga hadii qawnto qoonta cabasheen miyaad adigu waqan weynaateen aad baad maadsantahay abwaan Allah ku sharfo soo dhaw walaal marka hore kuna soo dhaw Sahal Cable TV adoo igu bilaabay magacaaga Maxamed Abdullaahi Sulub Maxamed Abdullaahi Sulub maxamed aad baad maadsantahay ku soo dhaw ku leeyahay Sahal Cable TV sidoo kale barnaamijka su'aalaha barsu'aasha ku weydiinayo hadii aan ku weydiiyo waxa ka oranaysa bal waxaad noo sheegtaa qaarada wadanka ama dibadda ama Soomaaliya wadankii ayaa jeceshahay inaad ku noolaato waan jecelahay Ceerigaabo inaan ku noolaado gobolka Sanaag Ceerigaabo inaan ku noolaado waan jecelahay waliba daalina aad baad maadsantahay waliba buurta daalo waa taqaanaa iyo buurta hadaaftimo inaan ku noolaado waan jecelahay aad iyo aad halkan soo kula faraay hadda goor hooyada waa tiro ku dhoofinaya Mareykanka ku dhigay waan diidaanu mid diiday baan waxaan tiraano Ceerigaabo iyo daala haysa hooyo macaan waa joogaya waan ku yiri halka hadii lacag la igu soo diray soo dhaw walaal marka hore kuna soo dhaw Sahal Cable TV sidoo kale barnaamijka su'aalaha Boosanaag adoo igu bilaabay magacaaga walaal waan dhawahay magacaygu waa Cali Bilxan Axmed barnaamijka ku xidhantay ma la socotaan su'aalaha barnaamijka si wanaagsan hadda su'aashan ku weydiinaya aad galabta fursad u yeelatay inaan weydiiyo waxa weeyaan bal matalan waxa dhimatay gabadh deriskiina oo kale ama jaarka oo kale sida loo yaqaan oo kale bal gabadha dimaashada yaaskan xatri gabadh baa dhimatay deriska jaarka ha bal gabadha dimaashada yaaskan gabadha dimaashada wallahi garama
soo dhawaad marka hore kula soo dhawaad Sahal Cable TV adaygu bilaabay magacaaga waa ku dhawahay Sahal Cable magacaygu waa Cabdishakuur weeye su'aasha ku weydiinay waxa weeyaan bal gabadh jaarka ah oo aad u wanaagsan baa dhimatay bal gabadha dimaashada yaska gabadha dimaashada yaska والله ما قرني ما قرني soo dhawaad marka hore kula soo dhawaad Sahal Cable TV sidoo kale barnaamijka su'aalaha Bosnaak adaygu bilaabay magacaaga magacay Abaas Xaaj Xasan Siiro Aliyo Faraj Amal Alida Bajareer weyn koobda waxaan ku dhashtay tuulada ma jabto boosaasan joogo gobolka bari gobolka bari aan joogo su'aashan dadka weydiinaya galabtay wax ka oranaysaa bal gabadh dariska ama jaarka ah oo wanaagsan baa dhimatay bal gabadha dimaashada yaska gabadh dariska ah oo wanaagsan ayaa dhimatay bal dimaashada yaska gabadha bariisha gabartii aa dhimatay dimaashida dimaash waa dariska waa miya ana iskale ana iskale gabartii gabadhu waa dhimatay dariska tiri gabadhu way dhimatay ku soo dhawaad Sahal Cable TV iyo sidoo kale barnaamijka su'aalaha Bosnaak adaygu bilaabay magacaaga Abdurrahman Jamal Balila walaalay Raxmaan aad badan maadsantahay marna ma ka qayb qaatay barnaamijka waa ka qayb qaatay laakiin hadda waa soo yeegalta aad buu soo yahay laakiin waxaan ku sheegay maxaad weydiin lahayd walaalay su'aal badoonayna ku weydiiyo ha walaalay see u aragtaa aad buu fiican soo shad buu fiican aad buu fiican magaalada waa raaqaysannahay waa wanaagsannahay waa dhibaato ma jiraan ma gartay su'aashaan ku weydiinaysa see u aragtaa soo dawaa ka jawaabay aad soo diiso hadda ma maasantay hadda bal su'aashaan ku weydiinaya galabta dadweynaha magaalada Boosaaso si aan weydiinay wax ka horeysa gabadh aad u wanaagsan oo jaarka ah ayaa dhimatay bal gabadha dimaashada yaskal dimaarkeeda oo jaarkayga walaalkii baa iskale walaalka waa iskale aad baad maadsantahay walaal iska tagayga waa hagaag daawadayaal guud ahaanba intaa ayaanu ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeygii su'aalaha taasoo la dhex qaadayay dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso su'aalaha aan galabta weydiinayay ayaa waxay ka koobnaayeen 3 su'aalood 3 su'aalood ayay siyaabo kala duwan ay iga jawaabeen haddaba waxaan leeyahay waxaad si toos uga daawanaysaan Sahal Cable TV dhanka kaamirada waxa ay la qayb qaadanaya Cabdiwali Maxamed Aar Cade aniga inta kala qayb qaadatay dhammaantii waxaan iskaga tageynaa sida iyo kulanti dambe xiiso leh